Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada aqoonsoor online academy oo uga barateen koorsooyin online ah. Waxaanu kusoo kordhinay koorsooyinka kala ah biology and chemistry codsi ka yimi dhanka ardayda awgood. Waxaan ugu talagalay meelaha muhiimka ah ee chapter kasta ku jira inta badan la oran karo imtixaanka ay ka iman karaan inaynu ku taabano isla markaana aynu ardayga siino su'aalo fara badan oo lagala shaqeynayo iyo kuwa markaa isagu ka shaqeynayo intaba. Waxaan rajeynaynaa inay ka faa'iideystaan dhammaan guud ahaan ardayda reer Somaliland gaar ahaana ardayda gobolka Togdheer. maanta waxaynu qaadan doonaa maadada chemistry-ga cashar ka mid ah casharada ugu muhiimsan ee ku jira maadada chemistry-ga chapter-ka afraad. lesson-kuna wuxuu noqon doonaa qaybta xisaabaadka ama calculation-iska oo aynu ku qaadan doono measuring energy transfer and enthalpy change oo macnaheedu noqon doonto inaynu xisaabino tamarta gudbaysa iyo sidoo kale enthalpy change-ga oo ah marka waxa weeye tamarta guud ee falgalkaasi uu qaato ama uu soo saaro. waxaynu qaadan doonaa direct method habka la yiraahdo. markaynu xisaabinayno waxaynu isticmaali doonaa qaacidadii basic ahayd ee aad ku soo barateen maadada physics-ka oo ah Q waxay la macno tahay MC delta T. formuladaas aynu qaadan doonaa si aynu soo saarno tamarta guud ee falgalkaasi uu qaatay ama uu lumiyey. intayna formuladan isticmaalin oo aynan xisaabtii u adeegsanin waxaynu u baahannahay maadaama ay tahay abbreviations letters la soo qaatay mid waliba waxa uu taagan yahay inaynu isla fahamno. waxaynu ka bilaabi doonaa Q maxay u taagan tahay. Q-du waxay u taagan tahay quantity of heat is the quantity of heat measured in joules. Q-du waa qadarka kulayl ah ama tamar ah ee ay biyuhu qaataan. experiment-keena ama tijaabadeena waxaan isticmaali doonaa biyo. qadarka tamar ee biyaha soo galay ayaa waxaa la odhanayaa Q ama waa quantity of heat. waxayna ku cabiri doonaa in joule. kilojoule kuma cabirayno, waxaan ku cabiri doonaa joule baynu ku cabiri doonaa. waayahay m-tani maxay u taagan tahay? m waxay u taagan tahay mass of water. mass of water waa miisaanka biyuhu ay leeyihiin ama culayska biyuhu ay leeyihiin ayay u taagan tahay. z maxay u taagan tahay? z waxay u taagan tahay specific heat capacity ama waxa af Soomaaliga lagu dhaho kulqaad. specific heat capacity oo lagu cabirayo measured in joule per gram per Celsius. zida waxaynu u qaadanaynaa inay tahay specific heat capacity waa kulqaad. haddii aynu qeexno waxay noqon doontaa waa tamarta loo baahan yahay in kor loogu qaado 1 gram oo waxay leedahay 1 degree temperature-keeda. waxaa lagu cabiri doonaa joule gram per Celsius ayuu noqon doonaa halbeeggeedu. waxay noo hadhay inaynu sheegno waxa loo soo qaatay delta T. delta
T sida kaaga muuqata dhawaaqa kelmadda delta macnaheedu waa change. T waa temperature. This one is the temperature change. It's the temperature change. waxaana lagu cabirayaa temperature-ka degree Celsius or Kelvin, labadaba waa lagu cabiri karaa hadba sida lagu siiyo ayay ku xiran tahay. formuladan baynu adeegsan doonaa, waxayna kula soo bixi doonaa tamarta guud ee la yiraahdo heat transfer ama energy transfer. sidoo kale waxaynu kula soo bixi doonaa enthalpy change, labadaba waynu kula soo bixi karaynaa. waxaynu adeegsanaynaa formuladan baynu adeegsan doonaa haddaba. okay, in your calculation markaynu xisaabta ka warramayno 3 su'aalood ayaa lagu weydiin karaa. any example tusaale kasta oo lagu siiyo. su-aasha koowaad ee lagu weydiin karaa waxay noqon doontaa in lagu yidhaahdo calculate the quantity of heat using Q equal MC delta T. su-aasha koowaad layna weydiin karaa waxay tahay inaynu xisaabino waxa loo yaqaano Q-da baynu xisaabinaynaa ama quantity of heat-ka oo ah markaa maxay qadarka tamara ee waxa weeye ka timi shidaalka la gubay ee soo gashay biyaha inaanu xisaabino. waa number 1. number 2, su-aasha labaad layna weydiin karaa waxay tahay inaynu nahno find the number of moles using waxaan isticmaali doonaa qaacidadan waxa weeye laba qaacido. number of moleska mar waxaa lagu helaa mass divided by molar mass or number of mole waxaa lagu helaa concentration times volume. number of moleska labada qaacido ayaynu ku heli karaynaa, waxaanay ku xiran tahay hadba waxa layna siiyo. haddii masska layna siiyo waxaynu ku shaqayn doonaa number of moleska waxaa lagu helaa mass divided by molar mass. haddii layna siiyo concentration iyo volume-na qaacidada labaad baynu isticmaali doonaa. su-aasha saddexaad ee nagu iman kartay layna weydiinaya waxay noqonaysaa calculate the enthalpy change using delta H is equal to Q divided by N. waayahay su-aasha saddexaad layna weydiin karaa waxay noqon doontaa inaynu xisaabino tamartii guud ee falgalku lahaa ama uu qaatay ama uu saaray inagoo adeegsan doonaa qaacidada ama formulada ah delta H waxaa lagu helaa oo u taagan enthalpy change Q divided by N. Q-dana waynu garanayna waxay u taagan tahay waxa la yidhahdo quantity of heat, N-tuna waxay u taagan tahay number of moles. marka labadaas sare qiimayaasha aynu helno ayaynu isu qaybin doonaa inagoo la soo bixi doonaa delta H. weli maynaan bilaabin example-keenii, balse waxaynu ka warrami doonaa qaacidadan isticmaali doono iyo sidoo kale inta tallaabo ee aynu qaadi doono iyo inta su-aaladu layna weydiin doono. 3 su-aalood baa layna weydiin karaa baynu nidhi inaynu xisaabino quantity of heat number 1, inaynu xisaabino number of moles number 2, iyo inaynu xisaabino enthalpy change waa number 3. 3daas ayuu noqon doonaa calculation-keenu. waayahay waxaynu eegi doonaa example-keena koowaad ama tusaalaheena koowaad aynu soo qaadan doono. tusaalaheena koowaadi wuxuu noqon doonaa experimental results, natiijo ka timi tijaabo la sameeyey. isla markaana reaction-keena wuxuu noqon doonaa enthalpy change of combustion oo loo qaato delta H C.
tusaaleheenana muxuu inoo odhan doonaa markaa the combustion of the butane is showing the equation below gubasho lagu sameeyey gaasta la yidhaahdo butane oo ah organic compound isleegteedu waxay inooga muuqataa halkan hoose sidee noqon doontaa markaa butane oo gaas ah ayaa waxaa lagu gubay 6 molecules and half oo oxygen ah oo iyaduna gaas ah statekeedu product inoo soo baxay wuxuu noqon doonaa carbon dioxide iyo water carbon dioxide wuxuu noqon doonaa 4 molecule biyuna waxay noqon doonaan 5 molecule way markastoo combustion reactions aynu ka warramayno maxsuulka soo bixi doonaa wuxuu noqon doonaa carbon dioxide iyo biyo sida caadiga naqaan isla markaana tamar way baxdaa tijaabada la sameeyay butane masskeedu waxa weeye 29 gram 29 gram of butane ayaa expanded maxaa lagu gubay in 200 gram 200 gram oo biyo labada boqol waxay noqonaysaa miisaankii biyaha temperature-ka kor loo qaaday na wuxuu noqon doonaa 10 degree halka markaynu ka warramayno temperature-ka layna siiyey laba qaab baa laynoo siin karaa in layna siiyo final temperature-kii iyo initial temperature-kii biyuhu lahaayeen dabeeto markaa inagu aynu la soo baxno temperature change-ga waxa la yidhahdo aynu la soo baxno iyo in temperature-ka markaa waxa weeye laynoo soo kala gooyo dabeetana hal temperature layna siiyo tijaabadu qaabkan ay u dhacaysaa markaa tayna ka shaqaynin kasoo qaad inuu kaasi yahay beaker-ka markaa waxaynu ku dhex ridi doonaa waa beaker ay biyo ku jiraan aaladeera la yidhaha thermometer ee inoo cabirta temperature-ka halkaas sidoo kale waxaynu dhigi doonaa benzene burner test tube aynu bartan dhigi doonaa test tube-ka aynu dhignay waxaa inoogu jiraa gaasta ama hawada la yidhahdo butane baa inoogu jirtaa butane kani wuxuu noqon doonaa flame ololkii buu noqon doonaa kani waxay noqon doontaa water biyihii beaker-ka inoogu jiray kana wuxuu noqon doonaa thermometer aaladii inoo cabiraysay temperature-ka markaa gaastan baa la gubay oo miisaankeedu ahaa 29 gram ayaa la shiday olol bay soo saartay flame iyo heatkii ka soo baxay gaasta la gubay waxa uu galay biyihii inagu waxaynu xisaabinaynaa 3 shay biyahana miisaankooda waa layna siiyo waa 200 gram calculation-keena waxaynu ku xisaabin doonaa 3 shay baynu ku xisaabin doonaa inaynu helno inta mol ee butane la gubay waynu soo saaran doonaa waxaan kaloo soo saaran doonaa butane markii la gubay tamartii ka soo baxday ee biyaha gashay qadarka ay tahay oo wuxuu noqon doonaa kaasina quantity of heat waxa la yiraahdo ama QD sidoo kale waxaan la soo bixi doonaa temperature-ka oo temperature-ka la siiyay ee kor loo qaaday waxay noqonaysaa 10 degree ayaa kor loo qaaday given-keenu waa intaas markaynu ka shaqeynayno markaa steps-kii baynu raaci doonaa ama tallaabooyinkii baynu raaci doonaa oo qaadi doonaa tallaabada koowaad step 1 waxaanu soo saaran doonaa step 1 waxa la yiraahdo Q-da waxaanu ku heli jirnay MC delta T ayaynu ku heli jirnay MC delta T baynu ku heli jirnay oo waxaanu xisaabinaynaa number 1 quantity of heat baynu xisaabin doonaa way M-ta waanu haysanaa oo waxaynu eegi doonaa formuladeena waxaynu haysanay given-keeno ah M-ta waa masskii biyaha waanu haysanaa waa 200 gram C-da waa specific heat capacity-ga biyuhu waa constant oo waxay noqon doonaa 4.2 ayay noqon doonaa specific heat capacity-ga biyaha marka laga warramayo waxaana lagu cabiri jiray joule per gram per celsius halbeegeysuna sidaas u ahaa sidoo kale waxaan haysanaa temperature-kii isbedelay ama heerkulkii isbedelay oo ayaguna 10 degree bal haddaba aynu ku gurno ama aynu xisaabino 200 gram oo MT ah 200 gram oo ah masskii biyaha ayaa waxaynu ku dhufanaynaa specific heat capacity baynu ku dhufanaynaa oo imisa 4.2 joule per gram per celsius
waayahay waxaynu ku dhufan doonaa sidoo kale temperature change-gii waa isna maxay 10 degree Celsius waxaynu isu jari doonaa gram iyo gram ayaa isla bixi doona waxaa sidoo kale isla bixi doona degree Celsius iyo degree Celsius halbeega ii noolaan doona ama meesha igu soo hari doonaa wuxuu noqon doonaa joule intaa markaynu isku dhufano waxay nooga soo bixi doonaa 8400 oo joule haddaba 8400 oo joule ee tamarta waa tamartii shiidaalkan marka la gubay butane marka la gubay qadarkii tamar ee galay biyaha galay ayaynu imika soo saarnay maadaama aynu u baahanahay inaynu xisaabino enthalpy change-gii waxa loo yaqaano maadaama aynu u baahanahay inaynu xisaabino waxaynu u qaybin doonaa kun baynu u qaybin doonaa waxaynu bedeli doonaa kilojoule sababtaa enthalpy change-ga ayaa inooga baahan halbeegiisu yahay kilojoule sidaa darteed marka kun loo qaybiyo waa 8.4 kilojoule waayahay tamartaas this is the step 1 step 2 ama tallaabada labaad aynu qaadi doonaa maxay noqon doontaa inaynu soo saarano number of moles ayaynu xisaabin doonaa calculate waynaga soo aragnay 3 step ama 3 su'aalo la weydiinayay ta koowaad waxa la weydiinayay quantity of heat oo waynaga soo saarnay talabaadna waxa la weydiinayay number of moles baa la weydiinayay oo aynu soo qaadanay n small number of moles wuxuu lahaa laba qaacido ama laba formula keebeen isticmaalaynaa waxay ku xiran tahay waxaanu haysano ayay ku xiran tahay hadda waxaanu haysanaa masses baynu haysanaa sidaa darteed waxaanu isticmaalaynaa kii ahaa markaa mass divided by molar mass kaasaynu adeegsanaynaa mass divided by molar mass waayahay massku muxuu noqonayaa marka masska walaxda la gubay oo ah butane ayaynu soo qaadanaynaa maaha masska biyaha walaxda la gubay masskeedu wuxuu noqon doonaa 29 gram way waxaanu isticmaali doonaa qaacidada ah mass divided by molar mass sababtoo ah waxaanu haysanaa mass baynu haysanaa ee ma haysano iminka concentration iyo volume sidaa darteed 29 gram oo butane ayay masskeenu noqon doonaa waayahay oo loo qaybiyey molar mass ma haysano laakiin waa inaan la soo baxnaa waxaynu kula soo baxaynaa compound-keena ayaynu kala soo baxaynaa compound-keena waa butane kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdixakiim Maxamed oo ah macalinka daadihin doona maadooyinka biology-ga iyo chemistry-ga oo ka bixi doona aqoonsoor online academy hadda wixii ka dambeeyay muddaba ardaydu waxay naga soo codsanaysay inaanu bilowno maadooyinkan oo aanu hore u ballan qaadnay inaanu bilaabi doono waqtiga saxda waxaanu aaminsanahay inuu yimi waqtigii saxda ahaa ardaydana waxaanu ugu bushaaraynaynaa inay koorsiyada ay isu diiwaangelin karaan maadooyinkan waxaa ka faa'iidaysan kara ardayda dugsiyada sare siiba ardayda form 4-ka ee u diyaar garoobaya imtixaanada shahaadiga kooraskuna waxa uu xoogga saari doonaa qaabka amaba mawduucyada ay muhiim ka tahay amaba ay u badan tahay inay imtixaanadu ka yimaadaan ardayda waxaa la siin doonaa lagalana shaqayn doonaa layliyo u carbinaya inay u diyaar garoobaan imtixaankaasi shahaadiga haddaba ardayda waxaan ugu bishaaraynaynaa in ay isdiiwaangelintu si toosa u furan tahay lana soo xiriiri karaan nambarada shaashada ku qoran si ay ugu biiraan fasaladaas waxa kale oo ardayda jooga magaalada Burco ay isu diiwaangelin karaan hab offline iyagoo imanaya xafiiska waa mahadsantahay